بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa cabdiraxmaan maanta waxaynu ka warramaynaa cashar aad iyo aad u muhiim ah. casharkaasi wuxuu ku saabsan yahay sidee ayaad u qarin kartaa IP-gaaga amba shakhsiyadaada aad ku isticmaalaysid internetka sidaan ogsoonahay waxa uu leeyahay amba shirkadda ku sameynaysa ama shirkadda ku siinaysa internetka waxay ku siinaysaa IP ku gaara oo adiga khaas ku ah si ay xarakaadkaaga iyo meelaha aad galaysid ula socotid. sidoo kale shirkadaha kale ee dibadaha ku yaala sida Mareykanka ku yaala sidoo kale waxay ogaan karaan meesha aad joogtid iyo waxaad isticmaashid. marka si aad arintaas uga fogaatid waxa la doonayaa amba waxa kula gudboon inaad isticmaashid programkan aynu maanta sharaxayno oo magaciisa la yiraahdo Safe AB waa program aad iyo aad khafiif u ah oo ku ilaalinaya shakhsiyadaada, location-kaaga beddelaya si ayna qofna ku ogaanin, sidoo kalena ku furaya website-ada ay xukuumaddu amba shirkadda ku siisa internetka ay ka xidhay. marka programkan Safe AB baa la yiraahdaa, waxaad ka soo degsanaysaa linkigan. waxaad gelaysaa page-keenan waxaana ka soo degsanaysaa halkaas aad ku dhufanaysaa free Safe AB. marka linkiga xaga kaga dhufatid waxa ugu horeeya ay ishaadu qabanaysaa waa Get Safe AB. aniga waan soo download-garaystay. marka soo download-garaysatid aad sidii caadigeed programyada aad ugu shubatid waad dhexgelaysaa programku waa free. wuxuu ku siinayaa in ka badan 100 location oo kala duwan ayuu ku siinayaa, 100 IP buu ku siinayaa oo kala duwan. sidoo kale waxaad ku programin kartaa in aad 10 mir ama 5 mirba uu bedelo IP-gaaga. waa ka programki soo kacay. programku marka ugu horeeya aragtid noocaas ayuu kuugu soo baxayaa. IP-yada aad aragtid ee hoos ku socda waxa weeyaan IP-yada uu ku siinayo waa IP dalal kala duwan. marka ugu horeysa setting-ka tagaysaa, meelaha saxan oo dhan waad saxaysaa, malware protected ayaad saxaysaa, browser ID protected baad saxaysaa, traffic encryption baad saxaysaa, DNS-ga saxaysaa, kana waad saxaysaa. marka programku laba qaybood ayuu leeyahay. sidoo kale language-ka ka doontid baad geysan kartaa, haddii Carabi ay noqoto, English haddii noqoto. marka programku laba qaybood ayuu leeyahay, mid aad lacag bixinaysid iyo mid bilaash ah. ka aad lacagta bixinaysid lacag saa u badan maaha, laakiin wuxuu ku siinayaa internet fiican oo ka fiican kan hadda uu xagan kuu soo dhigayo. marka Allahu musta'an, markaad doonaysid inaad connect garaysid amba aad ku xiriirsantid IP-ga doonaysid, kaasoo kale ayaynu soo qabsanaynaa London, England, kadibna xaggaas maad connect taabanaysaa. marka aad taabatid connect waa ka notification xagga kuu siinaya in IP-gaagu yahay protected, mid la ilaaliyay. location-kaagii ama meesha aad joogtayna waa la bedelay ayuu leeyahay. imika waxaan doonaynaa in eegno meesha aynu joogno. IP-ga ayaan doonaynaa in eegno inuu isbedelay iyo in kale. okay, hadda IP-ga ayaan iska bedelnay. laga yaabaa in London ayna si fiican hadda service-keedu u shaqeynayn, laakiin Canada ayaynu ku bedelnay. waxaanan hore kuugu sheegay in ay leedahay in programkan uu leeyahay intaas oo IP aad ku bedbedelan kartid. marka waxba hadduu mid shaqeyn waayo waxba isku cadibin, mid kale maad geysan kartaa. marka hadda waxaynu geysanay Canada ayaynu geysanay. imika haddaynu rabno inaan eegno sug in yar inta uu soo wareegayo. horta wuu bedelay, halkaas waad ku aragtaa. imika waad aragtaa wuu bedelay. IP-gaygu marka hore wuxuu ahaa Soomaaliya, haddana wuxuu noqday Canada. marka location-kaygii iyo waxaygii oo dhan way isbedeleen. marka programkan wuxuu ku saaciidayaa meelaha laga xayiray, meelaha laga joojiyay, meelahaas oo dhan inaad gashid. marka programka sidoo kale wuxuu ku ilaalinayaa ID-gaaga iyo shakhsiyadaada ayuu ku ilaalinayaa.
si ayna qofna uu kuusoo dabagelin qofna una kuu controlin. marka inaad ka faa'iidey manayaan filaya casharkan. haddaad videoga ka heshay taabo like iyo subscribe, sidoo kale waxaad taabataa jariska kaas oo kuu sahlaya videoga cusub sidii aad u daawan lahayd.